وتاريخديني taxan ahayd madaxweynayaashii dalka Soomaaliya soo maray ee soo xukumay waxaynu wadnay madaxweynihii lixaad ee dalka Soomaaliya Cabdilaahi Yuusuf aynu ka sii ambaqaadna haddaba halkii ay noo mareysay taariikhdeeni Cabdilaahi Yuusuf wana qaybtii labaad ee aan soo dayn doono aniguna waa libaax barqiye sanadkii 1964 ayaa loo dilacsiyay darajada gaashaanle dhexe waxaana isla markiiba uu u gudbay maamulka dhexe ee wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya mar kale ayaa waxbarasho loogu diray dalka Ruushka isaga oo galay kulliyadda dagaalka ee militariga sanadku markuu ahaa 1965 ilaa 1966 markii uu Raashiya ka soo laabtay waxa uu noqday taliyaha hoggaanka tababarka ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed bishii May 1968 mar kale ayaa lagu celiyay gobolada waqooyi ee Soomaaliya sanadkii 1969 isagoo oo halkaas looga dhigay abaanduulaha ciidankii loo yaqaanay ciidanka koobaad ee fadhigoodu ahaa waqooyiga Soomaaliya maalmihii haddaba curashadii kacaanka sanadkii 1969 ayaa loo taxaabay xabsiga isaga oo lagu eedeeyay in uu kacaanka ka cagajiidayo kacaankii uu hogaaminayay madaxweyne Siyaad Barre waxaana uu xidhnaa muddo 6 sano ah kadib waxaa la soo daayay sanadkii 1975 madaxweyne Maxamed Siyaad Barre ayaa u magacaabay mar kale taliyaha hoggaanka gaadiidka iyo dayactirka ee xoogga dalka Soomaaliya 1975 ilaa 1977 haddaba dagaalkii xoreynta Soomaali galbeed ayaa waxaa loo magacaabay mar kale hogaamiyaha ciidamadii dagaalka wuxuuna noqday taliyaha qaybtii ka dagaalamaysay koonfur galbeed ee Soomaaliya isagoo ka adkaaday ciidamadii Itoobiya Cabdilaahi wuxuu qabsaday dhammaan aagii isaga ku aadanaa ilaa uu gaaray magaalo madaxda gobolka Nageyle 1978 halkaas ayay inoo joogaysaa dhageystayaal iyo daawadayaalba aniguna waa libaax barqiye haddii eebba idmo la socda qaybaha dambe ee aan soo dayn doono insha Allah